Kusoo dhawaada sheeko koobista filimaanta. Maanta waxaan idiin soo bandhigi doonaa filim majaajilo, khayaali iyo dahsoon ah oo soo baxay sanadkii 2009 laguna magacaabo Astaanta Symbol. Digniin, qoraalkan waxaa ku jira qisooyinka muhiimka ah ee filimka. Is-ilaali. Nin u dhashay dalka Jabaan oo xiran dhar jiif oo midabyo badan leh ayaa ka soo toosay qol cad oo madhan kaas oo aan lahayn albaabo, daaqado ama saqaf muuqda. Markii uu ku dhawaaday mid ka mid ah gidaarada si uu si dhow ugu eego, wuxuu helayaa wax la yaab leh oo ka soo dhex baxay wax u qaab eg xubinta taranka ee ragga. Kadib markii uu dhowr jeer taabtay, wuxuu riixayaa caarada, taas oo keenaysa in boqolaal malaayigood oo yaryar oo qoslaya ay ka soo baxaan dhulka iyo derbiyada, iyagoo halkaas joogaya dhowr ilbiriqsi oo qura ka hor inta aysan ku noqon meeshii ay ka yimaadeen. Hal wax oo ay ka tageen si kastaba ha ahaatee, hadda xubnahoodii oo dhan ayaa ka soo taagan gidaarka iyo dhulka. Tani waa wejiga loo yaqaan barashada. Isagoo uriyey farihii uu u adeegsaday inuu ku taabto badhanka qaabka la yaabka leh, ninkii ayaa cabsi la qayliyey, kadibna wuxuu bilaabay oohin iyo inuu caawimaad weydiisto qof kasta oo ag joogi kara, balse wax jawaab ah ma helin. Wuxuu go'aansaday inuu bilaabo riixista badhamada kala duwan si uu arko waxa dhacaya. Mar kasta oo uu sidaa sameeyo, shay kale oo kala duwan ayaa qolka ku soo dhacaya, laga bilaabo buraashka ilkaha ee yar ilaa weel weyn oo ubaxa lagu rado. Markii uu mar kale riixay isla badhankii, waxaa la siiyey isla shaygii, waana sida tijaabinta fikradan ee hal badhan ay u siisay raso weyn oo ah qoryaha wax lagu cuno, balse farxaddiisu ma sii dhowaanayso, waayo markii uu riixay badhankii ku xigay kii qoryaha wax lagu cuno, waxaa derbiga ka soo baxay gaari yar oo lugaha kaga dhacay. Badhanka xiga ee uu riixay kadib markii uu xanuun la qayliyey, wuxuu isu beddelay badhi, taas oo wejiga kaga dhustay. Saacado kadib, ninkii wuxuu qolka ku soo ururiyey noocyo badan oo walxo ah. Markii uu kubadda ku tuuray derbiga, waxay riixday badhan siinaya raashinka sushiga. Tani aad ayay u farxad gelisay maadaama uu gaajoonayay, laakiin wuxuu xaqiiqsaday inay ka maqan tahay maraqa soyga ee dhanaanka. Wuxuu weydiiyey dadkii soo xiray, laakiin sidii had iyo jeerba ma helin wax jawaab ah. Markaas ayuu si ku celcelis ah u riixay mid ka mid ah badhamada ilaa uu ka helay sushi badan, laakiin weli ma jiro maraqii. Isagoo quustay, ninkii wuxuu bilaabay inuu cuno sushigii, kaas oo uu arkay inuu aad u macaan yahay. Markii uu dhammaystay gabalkii ugu dambeeyey, wuxuu riixay badhanka si uu mid kale u helo, isagoo aad u carooday markii dhalo maraqa soyga ah ay ugu dambayntii soo muuqatay. Kadib markii uu dhaladii si caro leh isaga riixay, wuxuu riixay badhan kale, wuxuuna helay muraayadaha 3 beegle ka ah, 3 glasses. Markii uu xirtay, wuxuu ku guulaystay inuu arko malaa'ig yar oo farta ku fiiqaysa badhan. Ninkiina wuxuu dareemay farxad sababtoo ah wuxuu u malaynayaa inuu helay jawaabta. Si kastaba ha ahaatee, kadib markii uu riixay badhankaas, waxa kaliya ee uu helay waa tiro koob dib u socda iyo badhi weyn oo xagga sare kaga soo baxday si ay dhuusada ugu saarto. Dhowr saacadood kadib, wuxuu akhriyey 5 qaybood oo ka mid ah buugga sawirada ee Jabaan, kaas oo uu arkay mid aad u xiiso badan. Laakiin markii uu riixay badhan si uu u helo qaybtii 6, wuxuu helay tii 7 halkii uu tii 6 ka heli lahaa. Isagoo niyad jabsan, wuxuu bilaabay inuu tijaabiyo badhamada kale, kuwaas oo siiyey qaybihii 8 iyo 9, laakiin weli ma jiro kii 6. Badhankii ugu dambeeyey ee uu tijaabiyey si kastaba ha ahaatee, wuxuu u hayay yaab weyn. Wuxuu furay qayb ka mid ah gidaarka oo uu ka dambeeyo albaab. Ninkii ayaa u dabaaldegay helitaankan, laakiin isagoo faraxsan ayuu ka lumay badhankii furayay albaabka ka bixitaanka. Wuxuu iska riixay mid ka mid ah badhamada, si lama filaan ahna wuxuu u arkay nin Afrikaan ah oo gidaar ilaa gidaar ku ordaya. Midka xiga wuxuu keenay in biyo madaxa kaga soo dhacaan. Midka saddexaad wuxuu noqday kii uu u baahnaa, isla markii uu gidaarku furmayna wuxuu u orday xaggiisa, balse wuxuu uun arkay isagoo wejiga kaga xirmaya. Isku daygiisii labaad wuxuu u dhammaaday si la mid ah. Markaas ayuu xaqiiqsaday in albaabku uu furnaanayo inta caarada badhanka ay hoos u riixan tahay. Markaas ayuu bilaabay inuu tijaabiyo habab kala duwan oo uu ku gaari karo. Markii hore wuxuu isku diyaariyey sidii qof orod ku jira, isagoo cagtiisa ku riixaya. Kadib wuxuu ku dhuftay aaladda duqsiga lagu dilo isagoo meel fog taagan, isagoo rajaynaya in fogaantu ay isbeddel ku samayso wakhtiga orodkiisa. Midkoodna ma shaqayn, sidoo kale ma shaqayn inuu xadhig ku soo jiido ama uu isticmaalo dabaysha ka soo baxaysa marawaxadda. Qorshihiisii xigay wuxuu ahaa inuu koro gaadhigii yaraa oo uu riixo kadib marka uu badhanka riixo. Laakiin dhowr isku day kadib, wuxuu aqbalay inuusan si fudud u xakamayn karin. Waxa uu u baahan yahay inuu sameeyo waa inuu helo hab uu badhanka hoos ugu hayn karo. Wuxuu weelkii ubaxa saaray korkiisa, laakiin badhankii ayaa haddana kor u soo kacay. Markaas ayuu ninkii soo saaray gunaanad ah inuu weelka buuxiyo si uu u cuslaado. Markii hore wuxuu isku dayay badhanka biyaha, laakiin waxay noqotay mid aan faa'iido lahayn. Si kasta oo uu isugu dayay inuu biyaha u weeciyo, isaga uun bay ku soo dhacayeen. Isku daygiisii xigay wuxuu ahaa inuu weelka ku buuxiyo sushi, laakiin wuxuu noqday mid aad u culus oo uusan xitaa qaadi karin. Luqunta weelka ayaa sidoo kale aad u yarayd oo gacantiisu ma mari karin. Markaas ninkii ma haysan doorasho kale oo aan ahayn inuu isticmaalo qoryaha wax lagu cuno oo uu sushigii mid uga soo saaro. Wax yar kadib, markii uu wax ku filan ka saaray, wuxuu ku guulaystay inuu weelka qaado, wuxuuna u soo dhaweeyey badhamadii. Markii uu halkaas gaadhay, wuxuu ku qasbaaday inuu weelkii dhulka dhigo sababtoo ah wuxuu haddana ka lumay badhankii saxda ahaa. Markii uu mid tijaabiyey, ninkii Afrikaanka ahaa ayaa soo baxay oo si lama filaan ah ugu dhacay weelkii, taas oo keentay inuu dilaaco oo laba u qaybsamo. Tani waxay ka caraysiisay ninkii, kaas oo isagoo ooyaya oo qaylinaya helay badhankii saxda ahaa oo bilaabay inuu sushigii ku daboolo. Tani dabcan ma shaqayn, badhankii yaraa wuxuu ka soo dhex baxay bariiskii. Kadib ninkii wuxuu isku dayay inuu badhanka ku daboolo koolo, kadibna koolo iyo saxan bir ah, laakiin waxba ma shaqayn.
kadib markii uu qaatay dawooyinka xanuunka baabi'iya si uu ula tacaalo xanuunka albaabka u geysanayay mar kasta oo uu dhabarka kaga dhaco, ninkii wuxuu rabaa inuu ilkaha cadaysto, markaas ayuu riixay badhan si uu biyo u helo. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu riixay badhankii khaldanaa, badhankan ayaana muujiyey xadhi ka soo dhacaya saqafka. tani isla markiiba waxay soo celisay niyadiisa sababtoo ah waxay siisay fikrad qorshe cusub. Wuxuu furay albaabkii, kadibna wuxuu isticmaalay xadhigii si uu ugu lulo qolka oo dhan oo uu gaaro ka hor inta uusan albaabku xidhmin. Nasiib darro, markii uu isku dayay inuu furo albaabka ka dambeeya gidaarka beenta ah, wuxuu ogaaday inuu xidhan yahay. Wuxuu ku noqday qolka isla markaaba ka hor inta uusan albaabku xidhmin, isagoo dhabarka laga garaacay. Isagoo xanaaqsan ayuu derbiga laaday, taas oo dhaqaajisay mid ka mid ah badhamada oo muujisay fure dhex sabaynaya qolka. Sida ku dhacday albaabka oo kale, furuhu uu baxayaa marka badhanku kor u soo kaco. Markaa ninkii waa inuu helaa hab uu labadaba furaha qolka ugu hayn karo iyo albaabkana u furnaan karo. Marka hore, si kastaba ha ahaatee, wuxuu u baahan yahay inuu haddana helo badhankii sababtoo ah wuu ka lumay. Isagoo eegaya qiyaastii meeshii ay cagtiisu gaadhay markii uu derbiga laaday, wuxuu doortay badhan, balse waxaa derbiga ka soo baxay eey ku ciyaya. Isla waxaas oo kale ayaa ku dhacay badhanka xiga, laakiin nasiib wanaag, isku daygii saddexaad wuxuu noqday mid guulaystay. Isagoo indhaha ku haya badhanka farta ku fiiqaya, ninkii wuxuu dib u socday oo soo qaatay gabal sushi ah si uu ugu calaamadeeyo badhanka saxda ah. Markii uu riixay, si kastaba ha ahaatee, eygii ayaa haddana soo baxay. Markan wuxuu helay badhanka si dhaqso ah, wuxuuna sii watay qorshihiisii. Wuxuu sameeyey xadhigii, wuxuuna ku lulay si uu u gaaro badhamada kala duwan, laakiin weli kuma filna. Markii uu dhulka ku dhacay, wuxuu arkay aaladda musqusha lagu tirtiro plunger oo uu ka helay mid ka mid ah badhamada badan. Wuxuuna helay fikrad ah sida uu xallin karo dhibaatadiisa. Wuxuu u isticmaali karaa aaladdaas si uu derbiga u taabto oo uu isaga riixo meel fog. Isku day fashilmay kadib, qorshihii wuxuu u socday si habsami leh. Isku darka lulista xadhiga iyo isriixidda aaladda tirtirka waxay u ogolaatay inuu riixo badhanka furaha, qaato furaha, riixo badhanka albaabka oo uu gaaro albaabka ka hor intaanu xidhmin. Waqti iskama lumin, wuxuuna geliyey furahii godka isagoo si dhaqso ah u murgiyey, laakiin markii uu isku dayay inuu furo albaabka, wuxuu helay wax kale oo yaab leh. Wuxuu kaloo lahaa quful gooni ah xagga sare kaas oo u baahan 3 lambar si loo furo. Ninkii ayaa dibadda u soo orday, albaabkiina waa ku soo xidhmay. Isagoo xanaaqsan ayuu aaladii tirtirka ku tuuray derbiga ka soo horjeeda, isagoo furay badhankii soo saarayay ninkii Afrikaanka ahaa. Isagoo eegaya ninkii oo ag maraya, wuxuu xaqiiqsaday waxaa jira 3 lambar oo wejiga kaga rinjiyeysan, kuwaas oo qasab ah inay yihiin nambarka sirta ah ee uu u baahan yahay maadaama waqtiga albaabka ka dambeeya uu kooban yahay. Ninkii wuxuu maray hawshii lulista xadhiga iyo boodidda 3 jeer, mar kasta hal nambar ayuu gelinayay. Markii saddexaad, wuxuu halkaas joogay oo uu furay albaabkii, kaas oo in yar ku dheganaa oo uu ku qasbaaday inuu si xoog ah u riixo. Markii uu ugu dambeyntii ku guulaystay inuu sidaas sameeyo, derbigii ka dambeeyey ayaa xidhmay, isagoo kaga tegay meel cidhiidhi ah oo uusan xitaa ku dhammaystiri karin furista albaabka. Isagoo aad u niyad jabsan, ninkii ayaa dhulka fadhiistay oo bilaabay oohin, isagoo xasuusanaya dhammaan madadaaladii uu ku lahaa walxihii uu ka helay badhamada. Halkaasna waa lagu soo xidhay, laakiin ugu yaraan wuxuu haystay meel uu dhaqaaqo iyo madadaalo. Haddana wuxuu ogaaday inuusan qadarin waxa uu haystay markii uu hayay. Si lama filaan ah, wuxuu dareemay neecaw wejiga kaga soo dhacaysa oo ka timid gidaarka bidix. Isla markii uu taabtay, wuxuu helay dilaac muujinaya inuu yahay mid been abuur ah. Waqti iskama lumin, wuxuuna riixay qaybtii derbiga ahayd ka hor inta uusan halkaas ka bixin, isagoo dhowaan gaadhay marin dahsoon oo sabaynaya meel mugdi ah. Waxay u muuqataa inuu waqti badan ku qaatay orodka dhinaca ka bixitaanka. Markii uu ugu dambeyntii gaadhay qol, timihiisu way dheeraadeen, midabkii dharkiisa jiifka wuu yaraaday. Qolkan isna waa madhan yahay, albaabkiina wuu xidhmayaa isla markii uu soo galay, laakiin halkii ay ka ahaan lahaayeen malaayigo yaryar, halkan waxaa jooga kuwa waaweyn, kuwaas oo iyaguna ku dhex dhumaya derbiga oo keliya ka tegaya xubnahooda si loogu isticmaalo badhamada. Tani waa wejiga loo yaqaan ku dhaqanka. Dhanka kale, magaalo ku taal Mexico, qoyska Antonio yar ayaa ka walaacsan sababtoo ah aabbaha oo ah lagdamaa loo yaqaan ninkii geesmadoobaha wuxuu u dhaqmayaa si ka duwan sidii hore. Xaaskiisa waxay u malaynaysaa inay tahay sababtoo ah ninkan uu la tartamayo ayaa ka yar isaga, laakiin awoowaha ayaa tilmaamaya in waxa muhiimka ahi ay tahay khibradda ee aysan ahayn dhallinyaranimada. Ninkii geesmadoobaha waxaa soo qaaday gabadhiisa oo ah rabaaniyad Nun oo gaadhi wadda, waxayna u kaxaysay goobtii lagdanka si uu u bilaabo isdiyaarinta hore oo ay ku jirto beddelashada dhar. Dugsiga Antonio waxa uu xoog sheeganaya ardayda ay isku fasalka yihiin sababtoo ah wuxuu u codeeyey ninkii geesmadoobaha, iyagoo ugu yeedhaya qof daciif ah oo laga guulaysto. Markii waqtigii ciyaartu ay soo dhawaatay, gabadhii rabaaniyad ahayd ayaa haddana soo qaaday Antonio iyo awowgood si ay u geysato si ay u arkaan ciyaarta. Kooxda ugu horeysa ee soo gasha fagaaraha waa xoog weynayaasha waqooyiga. Kadibna ninkii geesmadoobaha iyo saaxiibkiis ayaa soo galay iyagoo wata magaca kooxda iyo dhunka aad u badan. Saaxiibkiis ayaa ah qofka ugu horeeya ee u dagaalama kooxdiisa, isagoo si fiican u bilaabay, laakiin waxaa dhowaan ka xoog batay kooxdii kale markii ay laba ula dagaalameen. Ninkii geesmadoobaha ayaa isna si dhaqso ah looga xoog batay. Laakiin isla markii uu ka soo horjeeday uu ku dhufan rabo kursi, ninkii ku jiray qolka cad ayaa riixaya badhan, wuxuuna keenayaa in qoorta ninkii lagdamayay ay si sixir ah u dheeraato oo uu labada qof ee ka soo horjeeda ku garaaco madaxiisa. Qolka gudihiisa waxba ma dhacaan, taas oo soo jiidatay ninka dareenkiisa. Markaa wuxuu sii wadaa riixista isla badhanka, isagoo keenaya in ninkii lagdamayay uu garaaco qof kasta oo goobta jooga, isagoo arkay inaanay wax natiijo ah soo baxayn. Ninkii wuxuu bilaabay inuu tijaabiyo badhamada kale. Mid wuxuu keenayaa in heesaa koox muse ah uu dabka afuugo taageerayaashiisa inta ay socoto xaflad ka dhacaysa Los Angeles.
midka kale wuxuu keenayaa in saaxir u dhashay ruushka uu ku fashilmo khiyaanadiisii, midka saddexaadna wuxuu keenayaa in nin ku nool Shiinaha uu iyo aydiisa. ninkii wuxuu qarka u saaran yahay inuu quusto markii uu arkay iftiin xagga sare ka imaanaya, wuxuuna dareemay in qolkan uusan lahayn saqaf oo uu arki karo malaa'igaha oo meel fog ku duulaya. wuxuu go'aansaday inuu tijaabiyo wax gebi ahaanba cusub markan, halkii uu riixi lahaa badhamada wuxuu u isticmaali doonaa inuu derbiyada ku koro. way shaqaysay, mar kasta oo uu gacmaha ku qabsado badhan ha ahaato gacmihiisa ama cagihiisa, wax la yaab leh ayaa dhulka ka dhacaya, laga bilaabo ubaxyo soo baxaya ilaa maroodi dhimanaya. mar kasta oo uu kor u kaco, saamayntu way sii kordhaysaa. maaha dabeecadda oo keliya, waxaa jira bini'aadantinimada iyo waxyaabaha yaryar iyo kuwa waaweynba, sida mishiinka rootiga gubba iyo dadka dayaxa ku degaya. markii uu gaadhay meesha ugu sarraysa, timaha ninka iyo gadhkiisuba aad bay u dheeraadeen, mana u baahna inuu derbiga sii haysto mar dambe. hadda isaguna wuu samayn karaa sida malaa'igaha oo kale. isagoo isticmaalaya dhammaan khibraddii uu helay, wuxuu aqbalayaa doorkiisa, bilaabay inuu doorto dhacdooyinka ugu waaweyn ee bini'aadamka halkii uu si nasiib ah badhamada u riixi lahaa. markii uu dhammaystay, waxaa ku hareeraysan baalal halkii ay derbiyo ka ahaan lahaayeen, wuxuuna gelayaa marinka iftiimaya ee meel kale kugu geynaya, kaas oo u kaxaynaya qolkii ugu dambeeyey. qolkani wuxuu gidaarada ku leeyahay qaaradaha adduunka iyo badhan weyn, kaas oo ninku uu rabo inuu riixo. tani waa wejiga loo yaqaan mustaqbalka.